إنا لله وإنا إليه راجعون وحا مقدشو كجيريودي حالي الله ونحرسته عالمكي وينا صوماليات شيخ عثمان شيخ عمر شيخ داود علسو عبيد oo geeridiisa runtii dadka Soomaaliyeed ay aad ugu wada naxeen sidoo kalena ahaa caalim Soomaaliyeed oo aad looga garanayo guud ahaan bagayga Soomaalida ay degtay iyo caalamul Islaam Bahawr Rahmad Sheekha ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ku xanuunsanayay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaana geeridiisa xaqiijiyay eheladiisa iyo qaar ka mid ah xirtiisa baraha bulshada ay ku xidhiidho ee Soomaalida waxa aad u qabsaday geerida Sheekha ee Bahawr Rahmad wuxuu ahaa caalim Soomaaliyeed oo looga birtay ama looga bartay fidinta dacwada isagoo oo sidoo kale lahaa markasi waaweyn oo ay wax ku bartaan xirta Soomaaliyeed waxaana ka aflaxay kumanaan mashaayikha oo hadda aad loogu yaqaano dhulka Soomaalida Sheekha Bahawr naxariista waxa uu qoray kutubo dhowr ah oo boqolaal gaaraya waxaana kamid ah oo lagu xusi karaa kutubadii uu ka qoray qabyaalada iyo sidoo kale eexda Soomaalida dhexdeeda ka jirta kutubo kale uu ka qoray ama uu wax uga yiri xirta Soomaalida ah iyo daryeelkooda iyo kitaabo kale oo dhowr ah oo boqolaal ah uu qoray oo qaarkood xalqooyin dhowr ah lagu bixiyay halka qaar kalena aan la shaacin wali Bahawr naxariista Sheekha kutubada uu qoray qaarkood caalamka Islaamka intiisa kale ay gaareen kuwana dhulka Soomaalida ayaa wali aad looga akhriyaa iyadoo oo Sheekhan uu kamid ahaa mashaayikhda farakutiriska ah ee wali markaas baaqi oo ku ah dhulkeena isla markaana dadku ay aad u mahdiyaan الله ونحرسه شيخ waxa uu ku dhashay degmada ceel dheer waxaana cilmiga markiisii ugu horeysay u bilaabay adeerkiis Sheekh Cabdullaahi Daawud Culusow waxaana hadda uu gacanta ku hayay xirta Sheekh Daawud Culusow ama markaska weyn ee sheekhaasi oo kumanaan xira ay wax ka bartaan geeridiisa ayaa la xaqiijiyay Allah ونحرسه waxaana ka tacsiyay madaxda Soomaalida oo kamid yahay Bahawr Rahmad madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya mudane Shariif Sheekh Axmed رئيس وزراء هوري حكومة الفدرال كصوماليا حسن علي خيره هي مسؤولين كله وآدو بدن وحلا شاعي إن شيخ لو آسد دونه قاب أو هوري وقدر دارمي وكنت على دقمة كهران قبل كبنادر وحاس آسكي سكسو قيب قري دونه مشايخ آد وبدن أو كإيمان يصدل كيدبديسة يضو أصيد وكلمة الصومالي ده إنتو وقوم مقاعوين أي آسك الشيخ كقيب قري دونان إنا لله وإنا إليه راجعون بهاور رحمة شيخ اسمه حدك